news ood kala socotaan barta internetka shirkan maanta ka dhacay North America oo ay ku yeesheen cuqaasha beesha Ciise aqoon-yahanada waxgaradka ayaa waxaan wareysanaynaa mid kamid ah cuqaasha beesha Ciise mudane ku soo dhawow magacaagana noo sheeg. waan dhawahay wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh waxa la yiraahdaa Maxamed Ibrahim aniga oo jooga North America halkani waxa aan ka cambaaraynaynaa dawladda Somaliland dibtii ay u geysatay beesha Ciise ee ka dhacay Saylac halyeyadii halka ku shahiidayna waxaan leenahay naxariis janna Allah siiya kuwa dhaawacna nabur gardara Allah ka dhigaan leenahay wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland maanta wuxuu yimid baan nagu maqaloon idaacadaha ka dhageysanay magaalada Saylac gobolka Saylac Ciise iskale samaroona ma daba joogsan karo cidna kalama gorgortami karo ninku warankaagu garin weedhaadu ma gashaan la yiri 60kii halkii Ciise oo la yeebay degmadiisu tahay waad iska ogtahay maantana hadii aad leedahay dalkan ka raraya sideeda u cadee waa dawlad ku sheega Somaliland waxa aan la sheegayo samaroona waxaan u celinayaa oo u sheegayaa isku degmo ma nihin isku dadna ma nihin dhagaxii 60kiina noo dhigay hadii aad ku noqon weydid dib wixii halka ka dhacay Ilaahay uu ku weydiiyaa baan leenahay waa qodob mid labaad wuxuu yiri anigu biirama doonay biili waan cishada waraniga Ciise ba la yiraahdo gadabuursi baa dhulka ka qaadanayna dhigtaydaba ma galaysa kani caadi tiri geedo waan ka cayays xaji hadayna noqonayni dadweedu dhan kale ba u socotaay goobtu istaagaba ninkan badhicitaalay ana taydiiga guursadaan gacalkay mooday isaaqba gadabuursi kuurso horkacayo Saylac kugu keenayo oo daba joogso kooranayo Ciise habeen kuma seexan laakiin Ciise dhulkiisa ka yar iyo weynba jad ilaa jad meel uu qaatamayna meelba laga qaadan waxa aan leeyahay halka waxaan uga dirayaa raggii odayihii Ciise iyo dhaqa oo halka joogay maradii caynta xumayda loo soo huwaday inaan lagu kala jabsado la doonayay maanta hadii aad garateen inagana hambaliyaan leeyahay wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.